بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوريا حالتها waxay maraysaa in la is afduurto kadibna la is dilo ya arinta sameynaya ya ka dambeeya arintaas isdul taagi doona bi idin taala sidaas oo kale rag badan oo la soo qabtay sidaas oo kale waxaan ka hadli doonaa Erdogan horta asal ahaan qof walba oo madax ah wadankiisa dantiisu yaqaana macna waa arin u baahan in lagu sheego asalku waa sidaas arinta Suuriya iyo sidoo hadda u hadlan waxa dabcan dareemaysaa نعم عدك الأمم مخنية وقاعدة ضرو إلا أنا نفتكر كان ونوقع ذي وحيالا نوع سوكلا أردوغان إيو إنك سوهاد يثنتي إثيوبيا إيو صومالي حد إنت ولا هذه وحبضان أي صبحين سيدا سوكلا نتنياهو وضحايا حوثيين ما إن برنمي 10 كانوا لقني حزب الله إيو بيحلمتك لكن نعم حماس أيو سي أغربي محايا الحماس ملوغا فرطو تاغن إذا إنت مركلا فيريو أنسى كبلون هالمر معجزة دي عالم كودن قبستي أو معناها وحن إيه كان صحافة مجلته إلا ويفهم خانسها نكن وجهي سما أركتي أوكي ديار داس ما أركتي هذا أسرع أكيد ديار دا دعضي أمل الرذي لو بالسكو هيا قلت أسرع عن النشيد وشهادنا يا ديار دا كل احتلاء الله أكبر الله ورشهد أن لا إله إلا الله المهم ديار لغا قوستay leeyiri hade boqolkiiba way dhacaysa wax badbaado ma lahan dhamaan dhimanayna ayuu ku dhex jiraa hatta waxa shaqeyn waayay bahladii oksijiinada oo ay diyaaradda markaasi loo soo riday dadka oo jeedaan way shaqeyn waayeen siday ahaataba diyaaraddu way soo dhacday way burburtay ninkii oo taagan iyo dadkii oo badankood wada inta 41 qof ku dhimatay يا أسوأ حوار في التسوق قالت أياد أركيسا وأكس جنودي المهم فيديو الحقا يسكن وياه طبعا وكان يا ردي حالة السياسة مقتي ولا أخرى بأضي أفرت إن كوخ من كل مرتين سيبتك الموتنا يقول حوار أن رافيو خير كان أوفي السادة وماشي إكاكو أضي أو إكاكو بأين السيد واكاس الله برتصفوها يا فيرتير هالكا خجارتي المهم وعاشمات قضاء وأساقا إذا الدوغيسة ما مغلي جرتي يلا هبل نصيب بدنا سوى مغلي جرت إلهي أمر كيسة والله مركا تهذا الغوخورين si walbo geerida dabcan halka ay kugu soo fuusho si walbo qori halka laga saaro si walbo diyaad cirka ka soo dhacday aad u saaran tahay hadda deeyta hada iimaan ma dhimanaysid ninkan diyaaradii markay xaaladda ku jirto oo ay cid walba ooynayso qeynayso ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasuulullah allahu akbar ay ku hay adkaar tasbiix af ku cilinay almuhim sidii ahaataba qadartiisa dabcan dhineed 41 qof diyaaradda ku dhimatay waxa la isku hayaa marka dhaawacyada korkeeda diyaaradda laga arkaayo waxa la xabada ama firritooyin badan galay saasoo kale iyo maya oo way soo dhacday sida ahaataba anaga hadda baarida uma joogno laakiin ujeedadan waxay tahay ninkan sida ujuubada leh ee aad loola yaaban yahay kulli wal wareysanaya sida saacadaha soo socota la sheegay sida wax u dhaceen iyo majugaad maqasheen iyo kada dad badan la wareystay laakiin asagana kulli wareysiga u balansan yahay anwaarul qur'aan adduunyadan dhaqaaqdee aadmigii horu maray agabyada la yaab kale ayar wada adeegsaday adoo aqalkaaga jooga anwaarul qur'aan online waxa ay ku diyaarisay barashada qur'aanka kariimka iyo xifdigiisa axaadiista iyo adkaarta iyo sidoo kale barashada higaada qoraal iyo akhrin culumta shareecada sida fiqiga tafsiirka iyo waliba luqadda carabiga waxa halka kugu diyaara macallimiin awood u leh inay adeegsadaan luqadda ingiriiska iyo afkeena hooyo ee Soomaaliga waxaadna kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqanaya anwaarul qur'aan online hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharada niga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaaray carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxa kamid ah
quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 153 طيب taasi waa taa midda kale Israa'iil aan u gudubno iyo Netanyahu wuxuu leeyahay xuuthiyiinta waxaan bari doonaa 10 kaasoo horaan u soo barnay Xisbullah iyo qayb kamid ah Xamaas iyo nidaamkii Asad iyo غيرkooda sidaas weeyaan way qayb kamid ah Xamaas maxaa loo kala qaadaa maxuu u dhiway tusaalahan 10 ayaan bari doonaa sida Xisbullah u barnay Xamaas aan u barnay kala u barnay yani Xamaas wuu herdamayaan wali waa ishaya xaaladda ma dhamaan faana farqa ma qadna nacam shalato awoodooda sidii ma aan waa sax 100% sawaariikhdii ay tuuri jireen oo kale yani meeshii ma yaalaan oo sidii ma ahan laakiin haddana ugu yaraan yani waa rag yani dagaalamay midibha ku dagaalamaane dhinacan waa taa dhinacan kale Xisbullah waxa la leeyahay hadee calankii cadda ayuu dhiibtay wax haba yaraatay dhaqdhaqaaq ah Allahumma sallim ila anaga una badbaadi hadda Xisbullah yaad ogeedeen macnaha awoodda laha intaas mar 40 mar ma la yiri ma 20 mar la yiri ma 50 mar la yiri ma aqaan almuhim tiradaasi ayuu Xamaas ka ood badan yahay waxa dabcan ajiib ah sida fudud marka loo gaaday oo ayna ugu horeysay isgaarsiintiisa ma ahan hogaamiyaashii waa arin kale aad u weyn laakiin isgaarsiintiisa yani waxa shaki laga geliyay xataa 2 iyo 5 iyo 10 iyo inay xataa iswareystaan macna waxa jira nin sarkaal ah oo kamid ah saraakiisha Israa'iil oo ka waramay inaad aragteen in kala ma ahaan yani qaabka ay ayaga Israa'iiliin ahaan yani uga eebiyeen Xisbullah biijaradii qarxayay iyo sida loo gaaday Xisbullah ay u gaadeen hadalka sarkaalkaasi cidii raacday waxay dareemaysaa waxyaalo badan oo xataa dabcan Netanyahu hadalkiisa oo ahaa wax badan aan haynaa oo aan xilligan doono isticmaalayno bal Xisbullah ma ahane dawladda ayaa lagu tilmaamayaa in xaaladooda ay saatahay macna xilligii loo baahdo lagu sameyn karo yani waa la simaal gashaday almuhim xuuthiyiinta sidaa ma u fudud yihiin waa su'aal marka meesha taala dabcan in badan jawaabta ay tahay maya laakiin ayaamaha way sheegi doonaan xuuthiyiinta inayna fudneen dabeecad ahaan yani marka laga hadlayo ma fududa nacam technology ahaan iyo hub ahaan waa arin kale oo dabcan laga adag yahay laakiin dhinaca kale marka ay noqoto sida Xisbullah oo kale gacmaha u taagi doonaa dhinaca kale Xamaas imo gacmaha ma taagta ayadoo hadee sidii aad ogeedeen loo galay oo hadee shacabkii Falastiin ay ku jiraan yani isbitaaladooda in qarxi lagu xiro in inta la soo istaajiyo rag tira badan qaarna eeyaha macnaha dabcan lagu diro qaar la dilo qaar la iska haysto way soo taageen Xamaas almuhim Netanyahu xuuthiyiinta u goodinaya طيب dhinaca kale Erdogan iyo Suuriya hadalkii oo ka yiri halmaan isdul taagno marka aan leeyahay dawlad walba danteeday fiirsataa hogaamiye walbana wadankiisa dantiisa uu yaqaana Suuriya Erdogan iyo dawladda Turkiga aad u caawisay waa la ogyahay raggan soo galay Turkiga macnaha dronska aad arkayseen nidaamkii Bashar al-Assad ciidamadooda oo meel jooga intay u tagtay drone dadkan jabhadii ahayn halkee intaasoo daran ay ka keeneen macquul say ku tahay almuhim Turkiga inay caawiso marka cid hadda aan ogeyn badan ma lahan laakiin arinta la yaab kale waxay tahay Turkiga waxay leedahay dadka kurdida ah ee naga soo horjeeda argagixisada sida hadalku dhigayaan weeyaan dabcan imma an yalqu silahahum ama inay hubkooda dhigaanay tuuraan oo ay yudfanu ama in lagu aaso fi Suuriya imma Suuriya aan ku aasno yani waxa u dhaxay ma lahan yani waan duqeynaynaa ciidda Suuriya aan ku carirogaynaa waan aasaynaa ama hubkay soo dhibayaan waxa u dhaxay ma lahan ogow hadalkan ma ahan hadal duqeyna la socota ay duqeynayaan xuduuda Suuriya iyo Turkiga dhexdooda waliba gudaha Suuriya Turkiga waxay soo safeen ciidamo hadii ciida ka badan oo taangiyadooda iyo adduunkooda wata dhinacan ogow Israa'iil Suuriya ka soo gashay dhinacan Turkiga ka soo gashay cid walba dan ay leedahay marka raggan waxay daba taagan yihiin akraadana waxay leeyihiin wax ka jira malaha ma dhigan hubkeena Suuriya nidaamkeeda cusub waxay dhaheen macquul ma ahan dawladeenan cusub ma doonayno banaanka in dad gudaha wadankeena jooga wadamo kale ay handadaan ay ku noqdaan ma doonayno marka ragii waxa loo sameeyay waa maxay ilaan Turkiga maadaama ay caawisay kuwa naga celiya amal kuwan qabta oo kale iyo wixii la midka marka meesha wax baa ka jira Suuriya sidee markaasi ay u suura galaysaa dawladan cusub hadda la aasaayo hadii dhinacan Israa'iil ay ka cunayso
dhinacan turkiga uu ka cunaayo nacam turkiga uu ka cunaayo marka aan leeyahay turkiga qoladan uu cunaaya qoladanna laazim waxaa ah ima inay ayaga iscaabin sameeyaan ama ay jabhado ahaan ay isu qalqaybiyaan siday ahaataba inay qoladan isu dhiibaan way adag tahay marka arrintaasi turkiga xaaladaas uu taagan yahay dhinacan kale marka aan leeyahay yani Erdogan iyo turkiga iyo dowladda waan baranay waxa ka mid ah dabcan heshiiskii dara hadalka ku hadlay yani Ethiopia waa wadan aan saaxiibanahay bal hadalka u fiirso Ethiopia waa wadan aan saaxiibanahay oo aadna u weyn marka xaq u leeyahay inuu baq xelo hadalka Erdogan weeyaan dhinaca kale Soomaaliya waa dadan caawinay xaalad adag ay ku jiraan aan ku caawinay macnaha Ethiopia waa saaxiibanahay Soomaaliya waa dadan caawinay labadaas hadal bal u fiirso adeega Soomaali ahaan المهم هل كان أنا بحياة فاهمتكم الله بناي لنا على سوريا هالمر في تغريدة لوزير الخارجية الإيراني قال من يعتقد هنا بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم التطورات المستقبلية كثيرة. أوكي ووزير كي إيران أو تاغن سوريا ما أين نقول يسرقن صوب حياة خطرت إسكندرية لا حالة هذا جيان أيام ما أين سوايا هذا وطن كره وحقوق عندنا وطن كره dadkii Suuriyiinta oo boqolkiiba 99 taagan waa macnaha badbaadnay alxamdulillah neefa naga soo faqday Iiraan halkaas ka soo goodinaysa almi maxaa dhacay in rag shiica ah waliba calawiyiin ah ninkan ira kale videoga dabcan aan ka soo qaatay screenshot-ka muhiim ah videoga inaan tuso maxaa waa la garaacaya ayaa nin sunni oo xaaj aaway magaciisa waxa la xaaj Abdul Basit al-Bakri ay intay qabteen ay cadaabeen wayna dileen markay afduubanayeen kaamirooyinka qabtay raga duubay iyo dumar duubay dabaqyada korkooda ka duubay almuhim marka la soo qabtay leeyay aaw ninkii aad wadateen oo ay soo qabteen ragii meesha joogay askarta ahaa waxay maba ana maqaan videogooda la tusay almuhim waa la soo qabtay mise ninkii waa dileenba maxay u dileen kaliya inuu sunniya hatta weeyaan oo arrintan say ku dhacday bal halkan la dhageysta halmar alawiye rag shabaab ah wada askar aad u marayso hadalkii wasiirkii Iiraan kadib Suuriya xaaladana maraysa macnaha waxa ay Suuriyiinta leeyihiin waa shabiixa waa qolooyinkii Bashar al-Assad u shaqeynay u weeyaan ciidamadiisa oo dhan shacab soo gashtay oo iska soo dhigay hubkii oo kaliya laakiin alfaad waxay isticmaalaan maxay fidna oo ay leeyihiin calawiyiin aan hayo calawi had noolaada kada wixii la midka ah ayagoo mootooyin wata ay arkaysaan dhinacan kale يا جماعة إذا ما تم محاسبة الشبيحة ومجرمي الحرب ما راح يكون هناك سلم أهلي ما راح تستقر المنطقة اليوم الشبيحة نزلوا على دوار الخسيس خلفي تماما المهم حالتنا كجسة وحي رجعنا ليه هدانا دت كان هذا الله عامل نسيت أردنا الله قبل هذا حالة قعمة ويكب حيسها مركا إسأباب والمركو حاجرة قلوا يمكن حتى ولا ضد عفوا ولا كان يوم تصل وكالي وذات كان أسجنا وعلى سوق لكم إسبري يلا وحوليه يعني جا ساس ولا مجدين كذا لكن فيديو كان كسوق هذا يعني إن شاء الله بدو فيديو با مركن نوع مرة إسبري يلا أنا نبدأ أصاب بحني دبعت ما أنا ولا كذا وحلا متكو مركن اللي هي لكن ما كديم مركن لقطي وشيخ كم الشيخ هذا أو وريبا مثال إمام كأسوق صار فيديو وشيء جايو مركن رجي ترى بدنا ولا هذا أو كعناية المهم سوريا فانا فرق ما خدنا لكن هذا كان أنا قلت يعني كان هذا يقصد وحوليه إلى إدارة العمليات العسكرية إلى مؤسسات الدولة السورية بنطلب طلب أخوي وقفوا لنا أحمد الشرع أسبوع زمان وفعلوا لنا وضعية أبو محمد الجولاني ضد أذناب إيران ضد عملاء إيران ضد أحفاد صالح العلي المخبر بترجاكم هدو أبي ينفع معهم الأستاذ أحمد الشرع بدنا أبو محمد الجولاني أسبوع زمان بس اسمعوا كليه وحوليه بليز منك أحمد الشرع مقع عسكر يقول حقا تمق عيسى أبو محمد الجولاني يعني فهم عيسى يعني أبو محمد الجولاني هدوية معناها وحولد القرين كرا رجن غير إيران سوريا قصايا أولاد القرين كرا اسمعوا كليه أبو محمد الجولاني هناخده وأحمد الشرع عسكر يقول فهم يعني لا عجيبة إلى أبو محمد الجولاني وانك كاي بلايا محمد راه إسكت عندي ريو كذا أيوة لكن إنك هذا الثوانين دبلوماسية موجنا أيوة يعني أحمد شرع يعني وحولا أديك جلاعي كذا أي كم خذوه مركو حوليه بليز أرنتها إذا كنت سنة اسمعوا كلية المهم أنت سنقصوا كوبا يا معنا آدم وخص هذا الكاسي صارت سألوا ذا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharadan iga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaari carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shariicada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa cadayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 anwaarul qur'aan adduunyadan dhaqaaqdee aadmigii horu maray agabyada la yaab kale ayar wada adeegsaday adoo aqalkaaga jooga anwaarul qur'aan online waxa ay ku diyaarisay barashada qur'aanka kariimka iyo xifdigiisa axaadiista iyo adkaarta iyo sidoo kale barashada higaada qoraal iyo akhrin culumta shariicada sida fiqiga tafsiirka iyo waliba luqadda carabiga waxa halka kugu diyaara macallimiin awood u leh inay adeegsadaan luqadda ingiriiska iyo afkeena hooyo ee Soomaaliga waxaadna kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqanaya anwaarul qur'aan online